العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي تضبات يدروستين حجكي عمره بإذن الله تبارك وتعالى. هدي بيتكي إلهي لدسي أيا أمدين اللوغو نديو اللوغو دواقي وربي وأذن في الناس بالحج دادك أويسي واكا دادك أجيبي ويميد مركب بيتكي إلهي سو حجي ربي وحولي وليطوفوا بالبيت العتيق وأمر هالطوافان بمعنى هي مادان وهحجيان وهلا طواف وهلا عمريستو بيتك إلهي مركا ربي وحولي مركا لو عاهدنا في سورة البقرة وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نبي إبراهيم الله وحو كلا بلمي يا إسماعيل بين gurigiisa nadiifiyaan oy tahiraan dadka imaanaya uu ku jira kii tawaafayay iyo kii tukanayay iyo kii ku cibaadaysay intaba in loo nadiifiyo dadka markaa waxaa bilaabanaya xajkii ayaa u bilaabanaya iyo cumradii. ayib haddaba tawaafkii markuu dhammaado maxaa ku xiga? waxaa la rabaa qofku markuu tawaafka 7 jeer uu ku soo wareega kacbada oo dhamayso mar walba laga bilaabayo xajarul aswadka meesha ku aadanna laga bilaabo ay 7 ku dhamaadaan maqaamu ibraahiima ayaa la yimaadaa meesha ku aadan halkaasaa 2 ragcadood oo sunna lagu tukadaa. allah baa wuxuu yidhi wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa, ka dhigta nabi ibraahim meeshii uu istaagay idinkuna musalle aad ku tukataan ka dhigta. 2 ragcadood oo sunno ah baa halkaa lagu tukadaa. tawaafkii 7 ahaa markuu dhammaado oo weliba tawaafka marka lagu jirana ay ka mid tahay iyadana ruknul yamaaniga marka la marayay xajarul aswadka halkaa la aqrinaya aayadii rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fil aakhirati xasanatan wa qina cadaaban naar. waa aayad quraan oo iyadana la aqrinayo duco ah halkaasaa lagu aqristaa. tawaafkii markuu dhammaado maqaamu ibraahiima aad ku tukata 2 ragcadood xaggee la aadaa? التوجه إلى السعي بين الصفا والمروة. وحال هذا لورد دقاقيا صفوا يا مروة لحظة إن تضبجر يجنا سعيجي يأردك هالك على السماء. ربي باوح ليه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الصفا والمروة ومن شعائر الله، يعني ماشو إلهي كبلابي بقى بلابا مركا صعد كلا بلابا iyo sacyigana oo safu alla ka bilaabay safana waa laga bilaaba marwana waa lagu dhameeyaa. marka qofkii xajiya iyo cumrada gutana ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa laga rabaa inuu tawaafkaana uu sameeynaya sacyigana uu sameeynaya. طيب ayadan waxay lahayd hadiis badan baa sharaxaya iyo tafsiirkeeda ayaa sharaxaya باذن الله تبارك وتعالى. intaas markii la guto oo qofku uu tawaafkaana uu sameeyo sacyigii bayna safa wal marwa uu sameeyo haddii ay cumrada ay hawshaas ahayd ilaan cumradii sacyina waa la sameeyaa tawaafna waa la sameeyaa oo qaybtaasi ku dhamaatay oo wuxugaa uu qofkii taxallulkii uu sameeyo maalmo joogo waxaa imaanaysa yawmu tarwiya maalintii 8aad ayaa imaanaysa oo la diyaar garoobayo oo la rabaa biri oo kale in Carafa loo dhaqaaqo la aado. marka Carafa baa 9aadkii la aadayaa. rabbi wuxuu laysa calaykum junaahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idha afadtum min Carafatin. wa markii Carafa 9ka la taagnaa laga soo laabanayo fadhkurullaha cinda almashcari alxaraam. waa habeenkii Musdalifa la degayaa, habeenkii baa banaanka la joogayaa, subaxii baa marka halkaas yaa lagu ducaysanayaa ilaa waa berigu uu ka soo baxo mashcari alxaraam oo halkaas baa ducada subaxii lagu ducaysanayaa. xusa baa la yidhi wadkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qabli lamin addaaliin thumma afiiduu min xaysu afaada annaasu. haddaba soo dhaqaaqa la yidhi waa dhaqaaqa maalinta 10aad ee markii Musdalifa habeenkii la bariyay
oo subaxii mashcaru xaraam lagu ducaystay, haddana loo soo dhaqaaqay guriga ilaahay oo maalintaa ay dadku imaanayaan. haddana hawsh maalinta ugu adag weeye oo tawaafkii loodhan jiray tawaaful ifaada ee rukniga ahaayoo 4 rukni ee xajka ka mid ahaa la gudanayo. thumma afiiduu min xaysu afaada annaas wastakfiru llaha ina allaha gafuur raxiim. ilaahay istikfaar iyo dembi dhaaf weydiista. halkaana waxaa ku jira arrin kaloo istikfaarta iyo wanaagga ay leedahayo acmaasha oo dhan haddaad aragto inta badan istikfaartaasaa laga dambeysiiyaa. marka idinkoo wanaaggaa lagu jiray baa la yihi wastakfirullah sameeyo. thumma intaas kadib markii qofku uu guto oo uu sameeyo tawaaful ifaadihii buu imaanayaa oo maalintaas dadku ay sida daad soo rogmaday oo kalea lagu tashbiihiyaa, sidaas ay isu riixayaan oo sanka la isugu hayo ayaa halkaas isagan ilaahay subxaana watacaala sidaas buu inoogu sheegay. tasalsulkaas ayay u soconaysaa insha allahu tacaala. wajazaakum allahu khayr wbaaraka.